bilaal radiyallahu anhu bilaal al-habashi radiyallahu anhu maalintuu dhimanayay ee sankaraadku qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tiri waa xasrataah waa xazanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yiri na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul balanbalino ha igu dul qayline waxa tiraada quli waa farxataah waxa tiraada waa farxad buu ka yiri markaas ay ku tiri maxaan ku farxaa sawdiga iga dhimanayo ma wuxuu gadan nalqa al-ahibbah muhammadan wa sahbah anu baritu wala waxa la kulmaya nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalam iyo saxaabadiisii baan la kulmaya jeelkii baan ku jiray baan ka baxaya jannadii muhammad uu galay baan galaya buu leeyahay لماذا؟ لأن بلال رضي الله عنه مبشر بالجنة بوها مبشر بالجنة هبينك نبينا عليه الصلاة والسلام معراجك مركو صونق نبي وكي كيري بلال إني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة يا بلال شنقد هذا كبهاga شنقدودي أيان جنة هرتيدا كم مغلي محادك قبضي صدالك كو قادب رسولك يريد wuxuu yaa rasuul allah anigu waxaan laazima tahaarad ayaan laazima meesha weysadu ay gaga jabtana waan ku weysa qaataa dadna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukada intuu alla ii qadaray baan tukada markaa buu nabigu ugu jawaabuu ku yiri haadihi hiya allati balagatka taad maqaamka ku gaadhay waa weysa qabka aad laazimtay iyo markaad weysa qaadata labada ragcadood ee tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabu rasuulku yiri walaalayaal qofka bini aadanka waxa darajadaada kor ku qaadaya ee qiimo ku yeelaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadanka kor u qaadaya waa iimaankii amalka saalixa man kana yuriidu al-izzata falillahi al-izzatu jamii'a qofusiyay usika ya muad waxaan kugula dardaarmayaa buu nabigu ku yiri la tad'anna fi dubri kulli salah an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tagin inaad tiraadid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa taacadaada iyo dhikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nabigu ma siinayna ka jecel yahay adduunya ma siinayo nabi maxamed alayhi salatu wassalam shakhsiga uu nabi maxamed jeclaado waxa la siinayaa a'maal ilaahay u dhaweynaysa waxa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wa ala al-khazaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayo nabigu siinayaa wala adri habeenka mucaad bin jabal kayfiyada ku saxday ubay ibn ka'b يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وسماني بود يا رسول الله رسولك إلهي باكل أبي بن كعب وأنا أقول آخر استفعنا قرآنك إلهي أي نبي محمد ليه يا أبي بن كعب ربي قيبا أمري إن كقد الآخر هذه قد الشهادة سورة البينة لم يكن الذين كفروا markaasuu wasamaani ma rabbigayba aniga magacaabay markaasuu ha subhanallah farxadu ku saxda habeenka saxaabigaas bal ka warraba tasawaru takhayalu bal ka fikra ilaahay ba magacaabay oo leh ya muhammad ya jibril u sheeg nabi muhammad waxaad ku tiraahdaa ubay ibn ka'b suurada korkiisa ku akhriyo ma rabbigayba magacaabay fabaka ubay farxad bul ooy فرحت يبكون من شدة الفرح محادتك إلهي كجعل هذا هودو دمي راعين هنونك راعين شهوة دو دمي راعين شريعة دي راعين باطل كمي راعين حق أي راعين نفتو دمي أضعين إلهي بأضعين دينتا إسلام لماذا إنكم أنت أن هيسنو أن إنكم أنت أن كو أبتر سنينو أمي كرون شيئا بس دينتو ودينتي صلاة دوا صلاتي قرآنك وقرآنك حديثك وحديثك قبلة وقبلتي صونك وصونك مساجد ومساجدي حق أوجه سنة يبان أوجه سنة سورة فاتحة أخرنا إيمان أخرينا لكن قلوب تسبد شمانتا هاي اسبد لي
quluubta isbedeshay. هذا أبي بن كعب وهذا معاذ بن جبل وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. جبريل عليه السلام أيا سماذا كسو دادقيا مكو إمنيا وحكلا أمسعدو وحكلا مسدو صلاني بشارو سدا أيو أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين. يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعدو الشكتا الله السلام كان سلام وقسدا وعنا الله بشاري وبشاري قصر جنة كويا اللي قلي دونتا قصري ومركي قشنا وحسا وحنا إيا اللغوية يقيلوها بيراتي أيسا مغلي دونين با الله بشاري وبشاري بوكيدي. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يقبيل إلهي نقو قيمين ما يلعق إلهي مادة نقو قيمين مايو إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما شاء دونت الجوب طبقات دونت كجر وحا إلهي كقول حساب تميا وإيماني الله كبقويا. بلن كيس إلهي كما بحين من باجن إنك أسبدل إلهين اسمبدل جل وعلا. فنتبع الهدى حنونك هدار رعنو ونهوذي إنك الصوحدنو إلهي تبارك وتعالى صدو دتك الراليك وغن نقضي أيا إلهي إنك الراليك وغن نقضي مركو مسلم إيقادي ومسلم هذيك أنا كادي وخير با إلهي كل الضوني. نعمدان وضن هوس هنو اغنو نمبا دائما قال يوستا ننتوغا ايا اركي وحربا دائما كذهب كي قالغا انو كدعو كحدو waxau ku yiri halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa aniguba tuulada baan u socday han israacnayna mari buu ka yiri waa tuug tuulada isagu ma socday jawharadan iyo diamondka qaaligu ninkani waa tuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa taacad oo iska seexdaa laakiin tuuga habeenkii ma seexanayo uu shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadha jeebadihiisa oo dhan buu ka baadha uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxayo eegaya xeraysanaya uu yaaba war waa kan habeenkii oo dhan waan raadiyay habeenkii xaq u dhigaas maalintiina uu haystay haddana habeenkii kala soo galay sidii sillimada uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada u socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yiri anigu tuulada baan u socday oo aan ku soo raacay jawharada qaaliga inaan ka dhacon ka xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan ka waayaa habeenkii halkeedgiisa buu ka yiri wuxuu yiri cadceedu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayo jeebadaadan ku ritaa buu ka yiri xaguna ka raadinaya isagu yaa jawharada qaaliga isagee jeebadiisa ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kale uu ka raadinaya mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan kulli baanaynaa adduunkan iyo aakhira inaka haysana waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimada sideeda u qaadano waa quraanka kariimkoon barano ku amal falloon ka shaqeyno oo wuxuu noo xalaaleeyayna aan xalaalshanno waxa uu quraanku naga xareemayna aan xaraan u aragno nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale ka raadinayna إلهينا أمنك إيمانك كشاقي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا كو إلهي الرمي تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمانك وغنى شرك أنا كلرين أمنك كواسها ليا بإلهي أمنك إلهي عيدا كمحرين دولنا إلهي كمحرين إلهي أمنك وحاو كحري إيمان دبا إلهي كحري هذا دتك إيمان دبا لي مادام وإيمانكوغا شركة أين كلرين إلهي بلان وحوق هذا إيمان أمننا إنه هليان هنون كان إنه يكوكواس أي متيسن يهين نولول ونكسم من دوننا كل جين سو مرة ابنه
ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku doonay ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ee ugu macaan waxa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa inagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaa oo camal saalix bay kamid tahay noloshii wanaagsaneed ee ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay quraanka uu ku sheegayo iyo camalka saalix ee quraanka lagu sheegayo iimaanka iyo camalka saalixa kan maanta inagu aan haysano maaha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbiga Abi Bakar ku jiray iimaankii qalbiga Bilaal ku jiray salaadii Abu Bakar uu tukanayay salaadii Abu Hurayra uu tukanayay salaadii Umar tukanayay tan loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaas oo ahaa iimaankii camalka saalixa mathal baa ilaahay u soo qaadanaya مثل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهي بأمر خاتكعي إني مؤمنين دبا أي هايين وإلهي أي رميين وإرقد أي رميين وكتبت أي رميين وآخرة أي رميين ورسوش أي رميين ما دام إيمانك إلهي وكامل كدقي كو الله جد وكو صادق معه إيمانك أمد الله دوني إلا قارسين وإيمانك صحابة أقو muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yiri quraanka waxaan ku haynaa wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin waxa ilaahay leeyahay waxa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniinta maanta adduunyada mu'miniintu waa kuwan dhibaataysan oo gargaarka ilaahay wuxuu ilaahay mu'miniin buu yiri gargaarka ilaahay waa noo ballan qaaday inuu noo gargaarayo laakiin mu'miniintu quraanku sheegaya ma nahay maanta inaku kalimatul iimaan quraanka way ku taalaa لكن مؤمنينتي آوية كلمة التقوى قرآنك ويكوتا الله لكن متقينتي آوية كلمة المحسن قرآنك ويكوتا الله لكن محسنينتي آوية كلمة الصبر قرآنك ويكوتا الله لكن صابرينتي آوية كلمة القانتين قرآنك ويكوتا الله لكن قانتينتي آوية كلمة العلم قرآنك ويكوتا الله لكن علماء الربانيينتي آوية كلمة الذكر قرآنك ويكوتا الله لكن ذاكرينتي آوية صفاتkan quraanku uu sheegayo la rabaa inay quraanka ku taalamaahine waxa la rabaa waxan quraanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qorantahay in la helo loo baahan yahay khilaafadii Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa nin yahuudiya masjidka soo galo yiri aawiye quraankiini buu ku yiri muslimiintii waxay u tilmaameen Abu Darda ila wakan quraanka yagi Sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu anhu ayaa suuqa magaalada Madiina soo galay iyadoo salaadii ay dhawaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaala ay ka dhaqaaqeen ay masjidka u aguugayaan xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaas Umar bin Khattab wuxuu akhriyay aayada quraanka ninkii doonaya inuu arko aayadaas rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وكوا سيقبو يدي ما أنت إنك السوق يدينا ولا ليال مركا لا إعدامه سوق مسلمة أو مسلمة مي إن عدانا فرنسيسا هي دينة الإسلام كالسوق لي مسكيت كالله كيني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaas la yar sheekaysteen muslimado Soomaaliyada gabadhii buu aabaheedu u yimid oo gabadha waan jeclaaday ee dhisayadna way jeceshahay odaygii baa ku yiri maad islaamta adigu haa anu muslim baan ahay buu yiri dhowr sano ba islaam baan ahay hal maalin masjidka kaama arkine wuxuu yiri marka la aadimo muslimiinta masaajida inta soo galaysa iyo inta haraysa yama badan buu ka yidhaadeer ariyama badan inta haraysa badan wuxuu inta masaajida galaysa ku xaroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogan ku biiray buudi kuwaan ku biiray
marka aadaanku dhacayo la tukanayo kuwa dibadda joogaan ku jiraaya kuwa soo galaya kuma jira buu kumana biirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dejiyay ma aha in quraanka ku qornaato ma aha in diintu memory ay ku taala ma aha quraanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin quraanka waxa loo soo dejiyay in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa la inagu farad yeelay waa in la helaa 100% muslimiintu salaada inay ilaalinayaan soonkii baa la inagu farad yeelay waa in ay noqdaan muslimiintu 100% kuwa soomaya qadul basarka la inagu waajibiyay waa in muslimiintu 100% indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yiri waa in muslimiintu 100% xaaraanta ka dheeraadaan waa in dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shoogiya laabtooda ka muuqato ninkii doonayay buu Umar ibn Khattab inuu arko aayada quraanka oo shaqaynaysa rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah هاي يقبل وأكوا أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه إلى بيت الله عز وجل الله أكبر هذا مغلان وعي هيان ودندول كيسدا ودقين قدونا الليباني قول إلهي أكتي سيد الله جل وعلا قول إلهي باحيا عز شرف إلهي باحيا يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها وما قال هذا ما كان لقود حد صدور لعذابه لكن مركو أعمال إيمان لي مدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا شنقد هذا كبها قال شنقد ودي جنة هرت إذا كم مغلي هل كان محدكم قاعد يشيك برسولك كيوري والله هبينك بلال سيدابو كسحريك ولا هبينك فرحة ردد madaxweyne ku amaanay managerkii baa ku amaanayay aabbaha ku amaanay oo ciyaalka adiga ka dhex amaanayay ilmaha marka la yiraahdo uu farxaya ninka shirkadda u shaqeynaya marka la yiraahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee company-ga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yiraahdana farxad buu marka qofkaasi reereyn baa laga dareemaya hadii la yiraahdo wasiirka iyo ministerka ku amaanayayna ka sii daran baa maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaa bilaal kule yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada horteeda ka maqlay billaahi calaykum habeenka bilaal sidee ku saxday kula tahay farxad daraadeed sidoo ku saxday mucaad habeenkii nabi maxamed maalintuu nabi maxamed mucaad bin jabal gacanta uu qabto kulaha wallahi inni la uhibbuka ya mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalka waxa leh waa rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ma aha shakhsi caadi ah hadalka qof kale inay yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayu nabi maxamed gacantay tuu qabtay uu leeyahay wallahi inni la uhibbuka ya mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay oo maxaa lagu jeclaaday ragaas oo ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweyne jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa ما منافق بجلالات مودي ومحمد عليه الصلاة والسلام خلقك إلهي أبو ري كي أغو خير بنا أغو شرف بنا أغو كرامة بنا أيا كل يا معاد والله إني لو أحبك هداد مهرد هذا دح جوكتو وحاد كدق انت هاي أذيك والي إلهو مهرد إذا أن دح جوكا كاوين وكاقيمة بدن هذان كي ودعايا haddaad maqaayada fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaada iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanul qalmaha waxaad ku leedahay waa lisaanul xaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay la igu yeedhay waxay igala qiimo badan ubadkaaga igala qiimo badan waxalii wixii amarka ilaahay loo dayacaano ogow وعصي وضيعينها خلاص نيكا صلاة ضيعينا وحكستنا وضيعي صلاة نيكا ضيعي reerkiisa uu dayacay mas'uuliyad haduu hayana uu dayacay tuu dooni hadii loo dhiibo uu dayacay waayo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu khilaafadiisii buu oran jiray wariyada zamankii nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waxyiga ayaa shaqaynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nabiga looga waramayay dadna markaas nabigu qofka uu kala garanayay ma muumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir ama waxyigi uu go'ay buu yiri annaga waxaan eeganaa daahirkiina eeganaa Umar ibn Khattab naga khayrka aragnana waan aaminaynaa
oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna buu Umar ibn